muuqaalkani waa magaalada Hargeysa waxa muddooyinka u dambeeyay ka socday barnaamij halkudhig looga dhigay iftiimi xaafadaada. barnaamijkan iftiimi xaafadaada waxa gacanta ku haya dhalinyaro iskood isku xilqaamay kuwaasi oo hirgelinta hawshan ku fulinaya qaab iska wax u qabso iyaga oo kaashanaya muwaadiniin ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. waxayna dhalinyaradani xaafada ka mid ah gudaha magaalada Hargeysa ay ku xidheen leerar kala duwan kuwaasi oo door muhiim ah ka qaatay iftiinka bilicda caasimadda Hargeysa. dhalinyaradan iftiimi xaafadaada waxay hirgelinta hawshan ka fuliyeen qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Hargeysa gaar ahaan Axmed Dhagax iyo 11 May waxayna ilaa hadda gacanta ku hayaan hirgelinta hawshani. warbaahinta Hormuud oo u kurgashay barnaamijkan iftiimi xaafadaada ayaa booqday goobo badan oo ay ka socoto hawsha hirgelinta barnaamijkan iftiimi xaafadaada. bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa soo dhaweeyay talaabadan. walaalayaal waa iftiimintii xaafada aynu ugu talagalay runtii dad badan ay dhaqaalahooda ku bixiyeen iyagoo doonaya in ay ka qayb qaataan madowga inay iftiimiyaan meelaha marka aanay dadku mari karayn sida masaajidada oo kale marka la tagayo iyo meelaha iliiladaha iyo meelaha aadka u madow. marka imika waxa soo dhamaatay qaybtii hore laga soo bilaabo goolada ilaa Siinay ayaa la soo dhameeyay. waxaan imika bilownay qaybtii labaad oo xagga waxaan u leexnay Haaflandan dabeeta xara awrtii hore ayaa loo leexan doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. walaalaheenni ka qayb qaatay si guud iyo si gaar ahaaneedba waan ugu ducaynaynaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayran. inta ay ka badanna ha ka sii qayb qaataan bulshaweyntu iyo dadka deegaanku hana ilaashadaan baynu leenahay laambadaha iyo ilayskaasi loo iftiimiyay in xaafad waliba ama qayb waliba ay ilaashataa baa la doonayaa. dhalinyartu inaanay jajabin baa la doonayaa in ay ka ilaashadaan wixii waayo waa dan guud oo aynu wada leenahay waa laynoogu tabarucay waa inaan inaguna ilaashanaa. maanta doonaya halkan inaan uga mahadnaqo guddida dhalinyarada ah ee iftiimi xaafadaada oo hawl weyn ka qabatay wadada Siinay ilaa Faarax Nuur kuwaasoo qashaafada waaweyn noogu xidhay aadna ay u iftiimayso. runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay Ilaahay haddii laga baxo waxa laga baxaya waxyaabo fara badan dil xaafadii si dhayal uga dhici maayo haday iftiin tahay in mobil la qaada ka dhici mayso dhibaatooyin fara badan ba xaafada ay ka raysanaysaa. maanta waxaan 100% aad idinka mahad celinayaa dhalinyarada iftiinka xaafada ee barnaamijkan wada. waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idinka abaal mariyo haddaanu nahay dadweynaha iyo cuqaasha iyo odayaasha xaafadana waa idinka warhaynaynaa. alxamdulillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wa sallam. awalan mahad Ilaahay baa iska leh subxaanahu wa ta'aala. marlabaadka waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada xaafadda ee isxilqaantay ee ka damqatay darxumada xaafadooda ku taala maalan layr la'aanta ee isu xilqaamay inay xaafadooda iftiimiyaan oo halkaa ka aragtaan mustaqbalna arka doontaan xaafadda oo iftiintay oo leerku ku dhayahay. haddaanu nahay odayaasha xaafadan Axmed Dhagax siiba qaybta Siinay dhalinyaradaasanu aad ugu mahad celinaynaa iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay. alxamdulillah anaga odayaasha degmada Axmed Dhagax gaar ahaan Siinay waxaan aad ugu mahad celinaynaa dhalinyarada xilqaantay ee ka dhiidhiyay madowgii la mari jiray habeenkii xaafadda taajudka taasoo ay dumarka dhib badan ka haysatay khaasatan dumarka dhib badan ka haysatay. laakiin imika hadday leer helaan ay si habiya oo ammaan ah ay u tagi doonaan masaajidada xilliga taajudka. marka dhalinyarada isxilqaantay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa annagoo ku hadlayna afka odayaasha xaafadda. bismillaah waxa weeyaan annagoo ah odayaasha xaafadda Axmed Dhagax gaar ahaan xaafadda Siinay waxaanu aad iyo aad u hambalyeeynaa dhalinyarta barnaamijka iftiimi xaafadaada soo abaabushay. ciddii ka qayb qaadatayna waa u ducaynaynaa waxaan leenahay jazaakallahu khayr. marka waxa weeyaan dadku hab muwaadinimada ha muujiyaan hauna dhagan nuglaadaan dhalinyarta hawsha wada. waxaanu ka mahad celinaynaa mashruucan xaafadaada iftiimi oo aan uga mahad celinno dadka muxsiniinta ah ee doonaya inay xaafadooda iftiimiyaan. dadku haddii ay had iyo jeeraale xaafadahooda iyo deegaankooda ay sidaa wanaajin lahaayeen aad iyo aad bay u wanaagsanaan. haddii Ilaahay idmo maanta halkan waxaan u taaganay waxaan soo gaaray barnaamijka iftiimi xaafadda bisha Ramadaan dhalinyarada iftiin ee xaafadda degmada Axmed Dhagax
ayaa maanta kuwa dabadda jooga iyo kuwa dalka gudihiisa ayaana soo gaadhsiiyey aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madowgii habeenkii way noo iftiimiyeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin raxiim sidaad arkaysaan imika waxaan hoos taaganahay laambad ay ku xidhay dhalinyarada is-abaabushay ee xaafadda Sinay gaar ahaan gobolada Sinay anigu imika waxaan hoos taaganahay meheradaan ku leeyahay agagaarka gobolada Sinay halkaas oo hantitay goob madow oo aad dadku uga baqdaan isla markaana dumarka ay dadka moobilada kaga qaadaan ku dhibaateeyaan nadaafad darri xataa xaafadda dib ku haysay oo luuqa kaadi la istaagayay amniga u darnayd taasoo markii laambada lagu xidhay maasha Allah aad tahay wax aad loogu farxo lana soo dhaweeyo iyadoo ku jirna bilihii khayrka badnaa ee bishii Ramadaan baan ugu ducaynaynaa ilaahay idinkiisa bil Ramadaan ilaahay ka abaalmariyo ka taaysiiyo inta waxaan ku laambada dadka soo bixiyay ee noo xidhay waxaan ku madowga iyo dhibta meesha ka haysata dadka waxaan ku جزاه الله خير لا يدنكيس اساسا لا كابال مريم الله انت قشافدا maanta hadaan noo keentan in wax badan iska bedelaan de meel madow iyo meel ilaysni isku mid ma aha oo ilaahay ba muusimin mudada markii hore la isma talaabi jirin waa laga baqan jiray ilaa qofka la dhaafiyo dumarku siiba may mari jirin qashaafada waxa laga yaabaa in wax badan isbedel badan ay u keento way ka bedesho waan u mahadnaqaynaa intii gacan ka geysatay alxamdulillah dhalinyaradan isku xilqaamay iftiimi xaafadaada oo warbaahinta hormud warbixin ka siiyay halka uu marayo barnaamijkan iftiimi xaafadaada ayaa sheegay inay guud ahaanba caasimadda Hargeysa ka hirgelin doonaan barnaamijkan oo nagu magac darnay barnaamijka iftiimi xaafadaada ayaan doonaynay inaan uga faa'iideysano inta bisha Ramadaan inay dadku ay ku tukadaan maxallada ama masaajidada ay tagaan xilli ay iftiin tahay oo wadooyinka habeenkii la iftiimiyo sidoo ka warqabno caasimadda Soomaaliland waxay inta badan la circiraysaa xagga iftiin la'aanta dhinaca si dadka iyo bulshooyinka salaadaha tagaya ama taraawiixda u kacayo kale si ay uga faa'iideystaan maxallada leedka aanu doonayno inaan habeenkan ku shidno sida darteed waxaanu sameeynay inaan soo iibino maxallada anagu aan intan contribution ka urno dadka xaafadda degan oo nano waar inaga intaan cid wax ka sugi lahayn mala wax ka qurux badan inagu gacanteen biyo kaga dhalagno oo inagu wax qabsanay bal inagu wixii awoodeena aanu qabsano wixii markaa dawladdu ay noogu dari karayso inagu caawin karayso contribution keenana ay naga caawiso sida darteed waxaanu ka bilownay baraha bulshada inaanu soo ururino maxallada lacago kuwaas oo ku sheegayna inaanu caasimadda ku shidi doono iftiin caasimadda aan ugu sameyn doono sida darteed leyd baanu ka bilownay imika caasimadda gaar ahaan labada degmooyin ee Axmed Dhagax iyo Koobiyeso waxaan halkan uga mahad celinaynaa shirkadaha leydhka oo waliba iyagoo breefada haddana nala qaatay inaanu iftiimino bal goobaha madmadow sida buundooyinka maxallada wadooyinka aadka u madmadow habeenkii aan la mari karin iyo waliba maxallada meelaha masaajidada loo marayo xilligan oo kale taraawiixdii iyo taajudkii bay tagayaan dumar iyo caruur iyo dhalinyaro sida darteed si aanay cid tuuga iyo cid kale aan uga faa'iideysan ayaanu garanay inaanu bal wadooyinka u iftiimino iyo buundooyinkaba barnaamijka guud ahaantiisas buu ku bilaabmay waxaana ka faa'iideysanay wax weeyaan dadka iyagana contribution ka dhexdooda iska ururiyay caasimadana waa lagu sheeday kalmad degmaan ka bilownay insha Allah inta kale aan sii gaari karnaa waan sii gaarnaa hadii Allah idmo contribution kan waxa ka qayb qaatay dadka gudihiisa iyo dalka dibadiisaba majority-ga laakiin wax u badan dadka qayb qaatay waa dadka qurba jooga oo iyagu qaatay 70% qaatay waliba dhalinyaro ay badan yihiin dadkan barnaamijkan ka qayb qaadanaya contribution ka bixinaya iftiinka caasimadda u istaagaya wax weeyaan 90% waa dhalinyaro waxaan noo qorshaysan imika inaan insha Allah caasimadda oo dhanba inaan gaarsiino hadii la haydmo imika waxaan ka bilownay Koobiyeso Kamiya Axmed Dhagax waxaan noo qorshaysan inaan caasimadda oo dhan barnaamijkan gaarsiino iyaguna contribution ka dhinacooda ay bixiyaan anaguna aan inta ka qayb qaadano shirkadaha leydhka iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karaysaana inay gacanta ay maanta bana siiyeen in nala sii wadaan inuu barnaamijku isagu noo sii socon doono hadii la haydmo runtii barnaamijkan waxa lagu kalifay markaan aragnay magaalada Gabigeeda wada madow gaar ahaanteed meelaha buundooyinka iyo meelaha buundooyinka qayb ka mid ah oo meelaha aan la deganayeen misalan dadku ay ka fogfogyiin ama suuqa ku dhaweyn oo aad u madow markaan aragnay ay barnaamijkaasi nagu soo dhashay runtiina barnaamijka meelaha madow iyo magaalada in la iftiimiyada kulay horta dad baa iskale oo dawladda hoose lahayd balse maadaama dawladda hoose ka yar gaabisay annaga is xilqaanay oo si khayriye soo xilqaanay dabeetana sidii bal dadka ka soo ururiya wixii ma garanaysa meelaha madow iyo wadooyinka qaybaha kala go'an madow baa jira oo aan iftiimo ka jirin oo dadka lagu dhibo
marka anagu ma isla dhown bal intaan rabadaan ta khayrka qaata insha Allah wadabatan ka soo wariya runtii barnaamijka markaas aas ku bilaabay waxaan u mahadnaqaynaa dhalinyartayda abaabushay ee noo isku kay xilqaantay ee noo sameysay laambadaha maadaama ay maalintii ay rabadaan tahay oo la soomeeyay aan ciyaari karin kubadii barnaamijkan iftiimi xaafadaada ayaa ah kii ugu horreeyay ee noocan ah ee ay dhalinyaro iskood isku xilqaamay ay ka fuliyaan magaalada Hargeysa. Maxamed Shiciir Axmed, wararka warbaahinta Hormuud, magaalada Hargeysa.